السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal maanta waxaan noo soo qaaday qodob aan u magac daray caradu waa camal shaydaan. ninka la yiraahdo Benjamin Franklin wuxuu leeyahay wax walba oo caro ku bilowda waxa uu ku dhamaadaa fadeexo. caradu waa caadifad dabiici ah oo Ilaahay ku abuuray bini aadamka, laakiin waxaa jiro mararka qaar inuu qofka kuu gefo, ku caayo ama dhibaato kuu geysto ama kugu hadal celiyo, ama sida aad wax u rabtay si ka duwan u dhigo. hadalkaa waxaa dhici karta inaad qoonsatid ku dhaawaco, laakiin dadku waxay u kala dhasheen qaabab kala duwan, qof walba si ayuu uga falceliyaa. dadka qaar wax saameyn ah kuma yeelato, dadka qaarkoodna hadalka ayaaba ku xirma oo waxaa dhici karta inuu qofkii hadli kari waayo, qaar kalena gacan ka hadal ayay la soo boodaan. jawaabta uu qof walba ka bixinayo ka culays iyo saameyn weyn tahay, waxaana lagu gartaa inaad tahay qof caadifi ah oo caradiisu badan tahay, ama aan caradiisa xakamayn karin inaad ka bixiso jawaab ka weyn waxa dhibka lagu geystay. cilmi ahaan caradu ama qadabku waxa la yiraahdo waxay u qaybsan tahay laba qaybood oo kala ah aqoonsi oo ah mid fudud, ama qaadasho oo ah irritation wax la yiraahdo, waxaana halbeeg u ah inta ay la eg tahay jawaabta aad ka bixiso. tusaale ahaan, marka falcelinta ay noqoto mid shakhsiyadeed oo isku beddesha nacayb iyo cadaawad aan loo meeldayn, islamarkaana handadaad iyo aflagaado oo si degdeg ah qofka uga soo baxda afkiisa, islamarkaana ay abuurayso dhibaato ka weyntii hore. qoraaga qore buugga la yiraahdo Profile Emotion ee Benjamin Franklin wuxuu ku micneeyay carada xad-dhaafka ah qofka waxaa isbeddel ku imanaya jirkiisa oo dhan, sidii dab in la taabsiyo oo kale. qofka kulayl fara badan inuu qabto, cunuhu xirmo, wejigiisana uu dhiig soo buuxiyo, wadnahana aad u garaacmo, meeshana uu joogi kari waayo oo uu caro darteed. waxayna la wadaagtaa astaamaha inta kale, xanuunada, cabsida iyo welwelka. islaamka carada wuxuu ku sifeeyey waa acmaasha uu shaydaanku hoggaanka ugu qabto qofka bini aadamka ah, isagoo markaa ku riixaya ama u horseedaya arrimo xadgudub ah oo uu ka shalaayo. xadiis laga wariyey Sulaymaan bin Sadr wuxuu yidhi, inagoo la fadhino rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa waxaa ismaagay laba nin. mid ka mid ah ayaa caro darteed waxaa isbedelay wejigiisii oo wuxuu noqday casaan ama guduud caro awgeed. nebiga wuxuu yidhi, waxaan garanayaa haddii uu ku dhawaaqo kelmad uu qofkaasu degayo. asxaabtu markay yidhaahdeen, nebi allow noo sheeg, wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, wa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim. nimankii markii oraahdaasi ku dhawaaqeen ayay xaaladoodu isbedeshay oo ay degtay. nusuustu waa ay fara badan yihiin, waxaa ka soo qaadan karnaa aayad uu ilaahay ku leeyahay, yunfiquuna fi saraa'i waaddaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaasi wallaahu yuxibu almuxsiniin. marka aayadda micnaheedu waxa weeyaan dadka iska cafiya ee caradooda celiya ayuu ilaahay ku ammaanayaa. xadiis kale wuxuu leeyahay, qofka geesiga ah waa midka celiya caradiisa. xadiis kalena nebiga calayhi salaatu wassalaam nin uu weydiistay talo ayuu wuxuu ku siiyey ugu jawaabay inuusan caroonin, ha caroonin 3 goor. ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu daraa ummadaha caradu ku badan tahay adduunka. runtii intii aan caqliyaystay waxaan arkayay dad caradoodu xad-dhaaf tahay, wiil iyo waalid isu caroonaya, walaalo isugu caraysan, guryo caradu joogto u tahay, bulsho isku ciil qabta oo wada caraysan. hase ahaatee, anigaba waxaan u haystay inay tahay arrin dabiici ah oo dadka oo dhan ka siman yihiin habdhaqanka noocaasi ah iyo dabeecadaha qaarkood. ka hor intii aan dalka ka dhoofin oo aan la kulmin bulshooyin kala duwan, si walba oo la kala arag duwan yahay, balse wadahadal iyo isfahan ay astaan u tahay, islamarkaasna ay ahmid weyn siiyaan sidii ay u fahmi lahaayeen ama wax meel u wada dhigi lahaayeen. qodobkan iyo muhiimadda uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed ku baraarugtaa wuxuu yahay, waxaynu aragnay culimo, siyaasiyiin, oday dhaqameedyo dhammaantooda wada caraysan, shacab caadifadaysan oo wax yar oo caro ah markii ay qabato diyaar u ah inay burburiyaan wax walba oo ay u arkaan inay caradoodu dejin karto. taasi waxaa kaaga filan sida aynu qarankeenu u burburinay, islamarkaana aan ilaa iyo hadda ka wadno 30 sano kadib aysan weli caradii naga bi'in, oo mar walba uu shaydaanku ka faa'iidaysanayo inuu dib u damqiyo boogihii carada keeni jirtay. mas-uuliyiinta qaarkood markii su'aalo la weydiiyo waxaa dhacda in hadalku ka soo bixi kari waayo caro awgeed, islamarkaana mararka qaarkood aflagaado iyo gef kala duldhacaan wariyihii waraysanayay, isaga oo isla saxsan ciddii ka hor timaadana uu arko
ugu yaraan inay tahay jaahil. ummad wada caraysan oo aan xakamayn karin caradeeda sida muuqata waxay ku muransan yihiin dadku masaajidii, siyaasadii, qurbaha gudaha iyo dibadda. ugu dambayntii maxaynu ka yeelnaa carada? walaal, markaad caroto waa inaad cudubilaysataa. ka warhay jirkaaga isbeddelka ku dhacaya. haddii aad dareento in wadnuhu ku garaacmayo, cunuhu ku xirmayo, dhidid fara badan aad leedahay, waxaad ogaataa in falkaaga uu noqon doono mid ka weyn waxa lagugu sameeyey. isku day inaad meesha xaaladdu beddesho. haddii aad taagan tahay fadhiiso, haddii aad fadhidona seexo ama meesha ka tag oo biyo cab. sunno weeyaan falcelinta aad adigu bixinayso inaysan noqonin mid dhaawac weyn sii abuurta. waxaan kaa codsanayaa hadday jiraan xaalado lagu dejin karo carada markii ay ku qabato waxaad dhaafka ah, igu reeb dhanka kommentiga. run ahaantii waan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. qodobka inta ayaan kusoo gunaanadayaa. aad iyo aad baa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.